السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي دمانتي ميل كستا جوجتين واني سلامي صباح قفكي أوتاهي قالب عصر مقلب ميل كستا جوجتين أني كسلامي هاندي جرعاو فرحي محينا ودا عاو فرحي محينا ودا شنتا شي محاول تقعني تنتا شي هدا سميسيد ولقا مني الجبس ولي هوس مودعيس نولاش هذا قولا كجاريسا قول وين يهمي قال شنتا شي محاواي number one waa inaad tahay marka koowaad waa qof ilaahay ku xiran inaad tahay oo ilaahay talada u dhiibatid markaas waxa waay maasha Allah waxa way ku hagaagayaan number two qof qadarta aamino yani qof hadii wax ku dhaceen ama maanta waxaan uu ka halaabo business uu ka halaabay noloshaada wax kamid ee ka halaabay nolosha hore waa ku guuleysan weysay ma inaad ani bis waaye saana ay noqday maya waa ina noloshaada hor u sii wadid maxaa sameyn karaa taas ay ilaawday because wixii kugu dhici rabaa la kun sano ka weyn qadartay kamid tahay taas waa ina qadarta qof aaminsan aad tahay qof qadarta aaminsan aad tahay waliga wax ma ka halaabayaan hore u soconaysaa number 3 naftaada ina kalsooni ku qabtid wax kasta ina sameyn kartid ina isku dayid oo naftaada kalsooni buuxda siisid waa number 3 number 4 waxa waa asxaabe number 4 waxa waa in aad qof u noolaan أنت وحدها قف أقول له أنا حكى وذا يعني إن هذا دهين عنيقة قانك قف وقانك هذا قانك قف إنه قانك واحد سميلة إس قانتي سكوجرين يعني وقانك وهينين تلوينك في عوالة قاطع لكن معها واحد كستو سميل قرا أمو هذا واحد سمي سنة إنه وحنا هسمينين هدي القرا النو واحد دي هذي كله في عينه واحد في عين كوين ولا يرالك إيه صعب ساسواي ونمبر 4 تاسواي number 5 waxa waa inaad dhihin aniga waxaan hadda ma sameyn kari marka saas noqdo aad sameeyna maya hada ani meesha meela ku shaqeysan kara maaha marka wadankaas tagaa shaqeysana maya yani dadka Afrika jooga badana oo buufis ama waxa uu joogo waxa laga yaabaa qof 4 sano 5 sano meel guri oo magaalo joogi oo shaqeysanina dad war ma shaqeysato wax barat ama saa noqotay dabay waxa lagu dhamaa marka ani baxo waxa sameysana hadda maya waa bixi rabaa maxaa ka sameysana maya hal maalin hadaa joogto halkaas maalin ka faa'iideyso wadanka aad joogto waqtiga waxa wax qaali samaha meeshas ilaaha soo ka faa'iideyso halkaas maalin ee ku dhaafin waa fursad waa jaan waqtigaada waa inaad ka faa'iideyso meel kasta joogtid oo beer daraado ku dhameyn soo nolosha markaas horumar waa ka gaaraysaa taas waa shantaas dhiirigelintaas waa mahadsantiin walaalihiisa ay ku daawateen daawashadiina waa ku mahadsantiin please hada channel ku cusub soo dhawow aniga farxiyo xasan aan la channelka iga daawanaysa farxiyo vlogs soo maxaa ka codsanaa subscribe ka iyo like comment-iga share soo dhawaada fi amaan illah wa insha Allah dhammaantiin asxaabtay meel kasta joogtaan adduunka bye bye